ننتاجرة أو جناع صداع أيا جماعة كزيارة حفيز كيسي شاشد وين باهرت الله حفيز كست أو شغاليه سؤال فرديان كاميرا بودو سرون هالكابو كلا صعدا سفي عن هذا الكابو دقيسته markaasay jamaacadii kolkay xadiiseen bay ku yiraahdeen xashaashadana kul bamar eegay sidee dadkuna dhax soo socdaan wuxuu waa shaqaalihii baan shaqaalahaygii baan halka kala socdaa buu yiri oo gabdhaha ku jira maxad gabdhaha u khaawisi buu yiri markii qaar ku salmadaaba ka dhacaysay wuxuu yiri si kale oo lagu aaminaa ma jirto kaameraga bay ka baqayaan deedna xoolahaygii iyo shaqadeedii bay nabad galaysay buu yiri niga dadka muxuu ka aaminsan yahay marka uu shaqeynayo oo dhan waa tuug inay way idhacaan kaameraga waxaan u wada dul dhigay waa in xoolahaygu ay badbaadaan saas uu ka aaminsan yahay Soomaa hinde muxuu ka aaminsan yahay waa tuug qof la aamini kara ma jirto إذا ما تصدق كوي ذاتك ما أنت واحد لأميني كرامة بجربولي كان ماله بيبتمو كل عيا بولي طيب شغاله سيقف كمدا أيام مالين سجنا مال لقولا كل ما مركز سالقولي مالين بان سيرفيس كقوس ومرة يادو شقيسة شركة دا ما كشقيا مثلا سنة كشقيسة تضبط سنة لعد محوين نسيا أنت ما أنت شقدت بلودي لا تضبط سنة لعد هذا ما أنت هم بحاوا أنت ونما بيريو سند كستي وحو نغو يرادا واني بيرين نومنا بيريو بلن كست سند ولا بلن بو نو قادا بلن ما الاليو وانا بين على بيدادين اياكي شقاله waxay isaga ka aaminsan yihiin waa beenala ninkaas isagii iyaga wuxuu ka aaminsan yahay waa tuug haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal warano ma fiicanto shirkadii way kacdo waan xidhay buu yiri maxaad u xidhay wax dad waan aaminaan weynay buu khalaas dadkii amaana ma la buu yiri waxa laga yaabaa dadka u shaqeynayo dhan inay jaamacada ka soo baxeen isagana inuu jaamacad soo dhigtaan laga yaabaa laakiin amaano qofkii inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu طبيعة وناسنا ونقضه ما الدبلوم بيقول بهانتها مسد إيمان بيقول بهانتها بليش شجع يجي جوابه وفكون الرشية النقضه وبلن بوحية ونقضه بلن إلالية طبيعة وناسنا عدالة سماية إحسان سماية إنه نقضه ما الدبلوم بيقول بهانية هي ما نقاش يقول الجامعة اللي يرينك كالصباحة وحنا نقول إن أمانة حافظة نين رشيقة نين بلنبوحية نين عدالة سماية ما مغشين ما جرتها جامعة عنكاس ما جرتها ويجرتها وجامعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك الإمام مسلم في صحيحه وحكوري عائشة رضي الله عنها وحيتري جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها وحايتي متقبر مسكينة أو وحبان هيسن أو لبا قبضوضو يريرا وضطه مركاسي باهبا هيسن علمي سوك عايزتو عائشة ولتمت عائشة رضي الله عنها وحي تري وحان سيي صدح حبو تمر أيان سيي وحاي وهشا وحي النقدين صدح حبو تمر ما هن عن طوبو ما هن شن حبو ما هن طوبان حبو صدح حبا أيان أهلي وأن سيي بيت فأعطت كل واحدة منهما تمرة باهدة هاي سدرادد لبدي الموض أو يرير كاها متكستو كميدا حبط بيسيس ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها حبط دي صدحادنا وحي الدماغ إني عنتو كربي وقاضي هو يدي وي فاستطعمها ابنتاها لبدي قبضوت أيا لبدودي حبة انتي عنين هو يو أن ولي عنين حبة دي أيا ويديستين إني سيسو كدقي
فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما حبدي أي دوني سيني عنته يدعس أي لبدودي مسنوك للجويسي أو لبدودي أي سيسا أيضنا أي كقط فأعجبني شأنها بيت عائشة رضي الله عنها وحآدي عجب قلي أرنتي ده يدعس إيا النحريستي ده إيا الضغنشة كتيرت أيان آدي العجب بيت أيضا باهن أي حبدي نوك للجويس مركز النبي قال شيخ عائشة رضي الله عنها ويترها وين تاسا مانتا سيداس غوريغا تيميد حالديدونا سيداساي اهاyd markaasa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qad awjaba Allahu laha bihima aljanna labada gabdhood sababtood ayaa ilaahay naar ugu janno ugu waajibiyay inay janno ilaahay ay gasho aw a'taqaha bihima min an-nar wa shakum min ar-rawi ilaahay ama wuxuu ugu xoreeyay labada gabdhood sababtood ayaa ilaahay naar uga xoreey intaas naxariista ah oo ilmahaas baahan ay u daqnatay ayaa ilaahay janno ugu waajibiyay subhanahu wa ta'ala ahibati fil islam nin baa hooyadii qisadan waxa warinaysa gabadh daris la ahayd hooyada guriga ayay joogtay gabadhan iyadii ninkeeda iyo ilmaheeda gurigooda waxa daris la ahaa dhul aan waxba ka dhisnayn ilaa hal qol baa ka dhisnaa waxay tiri hooyadan waramaysa gabadhan waxaan arkay fiidkiiba laga bilaabo qolkii cidlada ahaa rag badan oo marna soo galaya marna ka baxaya haddii aan sii fiiriyeyna hawshu waa sii badatay waan ka shakiyey habeenkii oo dhan bay soo jeeday ilaa saacadu 2 habeenimo ay ka gaadho markii dama markaan baqay waxaan u yeeray ayay tiri ninkaygii iyo wiilkeedii weynaabay tiri bal arintan ka wardoona hadii la aaday waxa warku noqdo la keenay nin hooyadii iyo gabadhii la dhalatay ka soo cayriyay qolkii ay deganaayeen in meeshan dad muslimiin ay soo dajiyeen dadkan guriga soo galaya marna ka baxaya waa dad wanaagsan oo hooyadan caawinaya da'da tayib markay arinta khabarkii keeneen gabadhii ninkeedii waxay ka talabtay ogolow inaan soo booqdoon u tago haddii aan u tagay waxay tiri waxaan arkay gurigii waa hal qol waqtiga xilliga lagu jabayna waxay xilli qabow ah oo xilliyada barafka iyo qabowgu u dhacaayo qolkii waxaan arkay meelo badan inuu ka daldaloolo oo hawadii iyo qabowgii toos u soo galaayo waxaaba ka sii daran qolku xitaa musqul ma laha maalinkii labaad ayaa magaalada dadkii deganaa oo akhyaarta ahaa iyo culimadii iyo aa'imadii masaajidda oo iskaalmaystay baa wiilkii u tagay wiilka hooyadii muxuu ka soo saaray qolka wuxuu yiri gurigan 4,000 oo riyaal buu joogaa oo lacagta sacuudiga ah 4,000 ama isi ama iskaga bax subhanallah waxa uu yimid culimadii waxa la warniyo miyada alla ka baqayn warmiyayna qofkan hooyada adiga ahayn warmiyaan gurigan aabaha ka dhimanin warmiyayna dhaxalka wax ku lahayn wa fi dhaaka alwaqt waxa la yaabka waxa way inuu guriyo badan oo kala u lahaa wiilku qaar degan yahay qaar ijaar loogu jiray dadkii waxa la yiri warbaahrinimadii away hooyada loo sameyn jiray wuxuu ku yiri walaalayaal arintan soo socota wuxuu yiri qofka baari ahow adigu qaado hooyadan 4,000 anigaysi waxay arinta la mid tahay qof dhahaya man yashtari ummi bi 4,000 wariya hooyada igaga iibsada 4,000 waa qof isagoo nool hooyadii gadaaya walaalayaal waxaan idin sheegay hal qiso bir dhaxay waa cibro dhulka qaarkiisoo lagu nafsaday hadda ka hor waxaa dhacday nin xaaji oo miskiin waa 60maadkii dhowr iyo 60kii nin xaaji oo Soomaaliya xaj ku tagay baabuuro iyo tareeno iyo diyaarado badan iyo waxaas ma jira wuxuu ka baxay Jidda Makka Madiino xaaskiisa la socota
markii uu ka soo noqday madiina jidad laamiya xataa ma jirin dhulkaasu fakhri buu ahaa waagaas ayaa askari jidka istaajisay nimankii askarta ahaa ee boyntigaa joogay islaantii baa hunguri ka galay xaajigaas watay way dejiyeen labadoodiiba markay dejiyeenna waxaa islaantii waa lagu xadgudbay way iska aamustay odagii dhinac baa la geliyey iyadana dhinac shibbay tiri waxay tiri ama odagana lagaa dilaa balaayo kale intay kuu raacdo ceebtii iyo xadgudubkii ama haddana odagana lagaa dilaa ya iska aamustay markay soo dhowaadeen oo gaarigii ka soo baxeen meeshii ayaa odagii u sheegtay odagii baa baxay ani xaadisada waxaa ii sheegay nin odayah oo da' ah oo soomaali ah oo dhulkaas dadkii ku koray 100 sano ka hor xijaaz waxaa dhacday marka maxaa dhacday ninkii oo dee cirdigiisii lagu xadgudbay oo caraysan oo miskiina baa yimi wuxuu imaaday jidda subaxdiiba wuxuu tegey safaaradda soomaalida safiirkii buu la wuxuu ku yidhi saasaa igu dhacday waa muwaadin soomaaliya safiirkaa madaxuu ruuxay waraaqihii weli maanan geyno waxbaa maaragtay weli wasaaradda iyo kama aanan soo dhammaano meermeersi saas bal waa fiirinayna xaaladda waa fiirinayna nin odayaashii soomaaliyeedoo hore ah oo dhiigga lahaa oo dadnimada lahaa oo cizada iyo sharafta yaqaanay ayaa hortiisa fadhiyey intuu ishayn waayey buu dharbaaxa safiirkii kaga soo gooyey labada indhood buu jaray kaasuu yidhi kayr mas-uul dameer ah baa tahay muwaadin baa kuu yimi cirdigiisii lagu xadgudbay waxaad meesha u fadhidaa isaga khidmadiisa weey markaasaad leedahay nyic soo bax ninkii buu gacanta soo qabtay nin la yaqaanana wuu ahaa soo kaxay wuxuu u keenay boqor faysaloo markaas wuxuu yahay amiir dalkan xijaaz markaa mas-uulka isaguu soo geliyey dhegaysuu yidhi ninkaan dhegayso ninkii talada wixii buu u sheegay faysal wiilkiisii kulli waa dhinteen hadda sacuud alfaysal la dhihi jiray wasiir khaarijiye ahaan jiray oo markaa wiil yarahoo isaga la shaqeeya u yeer kaalay sacuudo bax diyaarad helicopter hal diyaarad bay haystaan qaado 4 nin oo askarta meeshaas joogta soo xira keena taxqiiqiya arrinteeda ii soo ogaaday wax yar haddii la keenay nimanka la soo qabtay wuu baxay ninkii nimanka uu soo tusay waa la keenay xoogaa haddii la juqjugayey waa qirteen arrintii horagu gooye buu yidhi afartoodaba ha la salbiyo hana la dilo afartiiba waa la dilay markii la dilay ayaa meydaankii qisaasta jidda lagu samayn jiray dad baa yaqaanay reer xijaaz joogi jiray ya meydaanul bayca meel la yiraahdo jidda bartamaheeda ku taalo waxaa jirtay dadka qoorta qisaasta lagu sameeyo ama xuduudda lagu oofiyo halka ha lagu salbiyaa dadkoo dhamme hadda wadaan waa dhowr iyo 68 meelahaas asbuuc wax ku dhowey meesha 4 askari saarnaayeen ya iyagu meeyda taas baa waxay keentay iyo xawaadista la midka ah baa waxay keentay in qofku dukaankiisa dhulkaas xijaaz markay ammaanka inuu marada intuu saa u saaro dukaanka aanu quful ku xirin iska dhaaf waxa ku jiray quful aanu ku xirin xataa albaabka ma xiray mara busaa u saari bas salaadu aadi masaajidku aadi mana ka baqayo miftaax yar insaan looga qaado waxaa dhacay gaf way gacanta maqan nina ku dhici maayo in la salbiyo dhulka ammaan weeye marka ma fahamteen xikmadda inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu وإن آد لو دلو بولي إلهي وثيقة مبالغة آد إن لو دلو ما هذا عي توقع قاتلك يا قاتلك هدون نبض قاله كن كلا كدن بيو ينا واحد دلاي قبيلكو هدو هوس قشرو او يراه قصاص لقاو في المايو او لحيري مايو او لدلي مايو هدو يراه قبيلكو ها اوغادو قبيلك لفتقيسا كن كلا إن لقد دلاي بغير حق كدي منايان
هل قف بقصاصتي سديدين فسهاد أي سمين أيام بالعيق وضياشاس قبيل كاس رير كاس فسهاد يسوق كلمين ينتاسوي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هدا ديدو قصادة بالقد فسهادي بريبر أنه سوماليا جوجنا وحن أيا وتخرج كوحل يا خروج بحي وحزل للمقتل طبعا نبان سؤال ما يقتل من وحن ورده قلا أو قدر كتب من دوانه المقتل وحن وربقر بشقة دونية بقر أي شقة دونية بشقة ينيسا أركا لو قوي بها حول وحقوقات مركب بقر قطر إيو كان السعودي قاعد سوقات ها وروان شقينا وحن بقر كاس إمي ساد وشقينيسا أفر بلود وشقينيسا أفر بلود خروج عن ربع ما أفر بلود لو أفر سنة أفرتن سنة ولا جوي أفرتن سنة ولا جوي سؤال بودي وحيري محو سنة يا أبوي محو مشاري سنة وحن بقر كا هدا وشقيش لما مدوي شقة خاصة هدا قبته شقالة خاصة ونقطتنا بلا حساب وين لقوا بحساب الماء بهاش أنت ضغطات قاعدة هدا بقر زوجي إذا كشقي ستنا ده وحوجي بعض لا هاي بالكست مالين كست مقدر وكوم أنا مش هنكسر على متقنن وهنكسر على أيدي معي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وشغالها خاص كأمك كواس صابرين إله دينتي سأتاجن ليلا ونهارا وبغير حساب يقول ما حسابي بقول تويدي سكويس كأجوج جوجنا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب لوح المحفوظ كوحي وقرنا ما قحبوا الروتي إما سحبوا بريس إما سحبوا بدر وأقرين أنت سيقاضنا يعني لكن كان يسوي شغالها خاص كأواب بلا حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب تاسن كوض أنا بوقت أسوي مو إلى هذا والله وارن ونكش مركز سؤال شيء رسمي قاعد باتميد وحويري وبقر كاس ترى ما قدر بقى بقر كاس سعودي قاعد ما قدر بقى ما ينقول هذا ما كسعودي قاعد ما بكان بحرين بقى ما خليج كسومر مريض يو ما قاعدوا الشك شيء ما أنت ما هو بقر كي وحنا بقر كاسي سعودي قاعد نسقى أسكال قدر نسقى أسكال بحرين نسقى الكويت نسقى أي يوروب يو أمريكان يو إنجليز يو كل نسقى أسكال دول كي عركنا نسقى أسكال ومركب وقرت وقت والشيخ هو ذي سود شيء وذي دوس شيء لكن نفي عبوها هذا نكاسي جاد بو إيبني سوق جاد كأهل جاد بو قدي جوان جاد ويا لكن فترة صومالي فيري وناقد وحير وذي دوس شيء كوده وصلنا لكن ما كان نقض ماله والله ما كان نقض ماله مركان أوجادي بقر كاسين وإلهي هنا هذا إمك شقين مايو مية لكربوي مركات صور لما يستان جولة إسوامر وادي الرعي فعلا وانا الرعي وحير ما كان نقض ماله ما حدا نقولنا إلهي وما شقينا ما قلت marka waxa laga rabaa inaad ilaahay tira ilaahay oo shaqaale iqor khaas ku ah oo diintaada u khidmeeyo oo idinka dhexdiina isku dadaan oo kuwan kale ee qaafiliinta ah mulxidiinta ah diinta ilaahay u yeera iyo dhar inay qabto hoostana ka qaawan tahay oo beer qaawi iyo waxaan waxba qarinayno khafiif ay qabto marka xadiidka maraba waxaan xasuustaa walaga yaabaa gabadhu inayna sa ay soo haysanin waxaan xasuustaa sideetan aakhirkeeda ay ahayd mise sideetan iyo sagaalkii bilowgeeda midkood bay ahayd anoo Kenya ka tagay baan nin saaxiibkay xamar tagnay xaafadda Madiina aan tagnay anagu tan bas ka degnay xaafad u soconna baa gabadh baan dhaxas hor socotay dirac iska khafiif qabta garbasaarna garabka u saarantay madaxeeduna u qaawaya waxaan ku tashanay markii xaafadda gudaha loo yargalay jidkan buuqa badan laga baxo gabadh inaan wacdino ayadoo naga hor socota baa waxaa naga hor yimid labo adka subxaanallaysan oo diracyana qaba wuxuu qarsoonna aan jirin gabadhiin hor socoteen wacdin lahayn baa la yaabtay dhinac intay u istaagtay bay tiri laa ilaah warkuba kuwii nabigu sheegay bay tiri kaasiyaatun caariyaatun nabigu yiri wey anaga waxaan la yaabnay gabadhan iyadoo hadday saa inay tahay isu haysato xadiidka ay soo gelaysa mayna samayseen
diintana waxbaa ka taqaan waxaan go'aansan inaan la hadlin kor baan kala soconay xaafadday tagta markaan ogaanay raggii ducaadda ahay magaalada xaafadda deganaan u soconnaa waxaan ku nihi warhaasha halkaas gabar baa gashay khayr baa nooga muuqday iyo inaynan fahansanayn waxay ku jirtee ha la waaniyo waxaan rabaa inooga jeedo sharku isagaa kayska sii kala subxaanalaysta